السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولالي وائد سلامي مركلي مقال كلو عصب صبحنا وناكسن سودو هذا ساقا وحنا وضع دو إلهي قدر لبدا قصو حي قصيان استغفارتا سورة البقرة يولي وسلق النبي ما شاء الله آد بأوجعشينا في لقصوين كانوا كله مركز سودو هذا إلهي نغو أنفعو كوي كفا إذا استنى الله سبحانه وتعالى هنقدقو وحان في لأنا عافماد قبتان meel walba oo dunida daafiyada aad ka joogtaan intii xanuunsan ilaahay waxaan uga rajeynayaa caafimaad taama dambi dhaaf iyaan uga rajeynayaa intii caafimaad qabtana Allah ha u siyaadiyo intii dhimatay ilaahay ha u naxariisto qabriyadana ha u waasiciyo riyaadul janna ilaahay beeraha jannada kamida qabriyada ha uga dhigo ilaahay ugama dhigo xufran min xurfinaar godgodo talaata kamida loogama dhigo annagan ilaahay gadaashooda nama fidneeyo soo dhawaada marka فإذا أنا كفائدة سنو ولا لها أباهنا وسشر قرين هدو على قدره لبدا قصة عنه وضو مد كمده جبر أيو قصية جور كأد وصوت ضاهي مد كمده نوحو قصية نين سد حاس قبي حاس كأفراد مركو جور سدي وحبا يودل ويسي دالكي يو رفاتكي يوحي إسلام مرين كدب أي قصة مارتي ما تسولوا هذا مركب قصة كوبادة كهور مرايا وانين كصد حدا حاس قبي نين كان وانين دولك عربتك سوت شيء ذا وعرب وحول هاي قصة أنا يقول عدو يري عدك لكم أي صدقين أساك شيكيي إن بدنا كاميرست إن كشيكيي يقول هاي لكن وقدام بس اللي هو فائديستو أو دتكو يقول فائديستان أيان وقش شيكينا يا وحال لها أيوير أفرح صد حاس أيان لها مردم بأيام وحنقول صدي حاسكي أفراد xaaskii afaraad wax u wada way dhali weysay xaasaska kalena waxay lahaayeen ilmo 2 sano markii la qabo wax u wadana aysan lahayn ayaan waxaan bilownay inaan aadno dhaqtar oo iyaduna ma aragtay ay waxay dareemaysay dareemi kartaa adoo kaliga ilmo haysanin inta kalena ilmo haystaan waa dareemi kartaa adoo ma aragtay kaliga oo naag lagu la qabino oo ma aragtay ilmo dhalinaaba marka ayaan dhali weyso dareemay laakiin adoo xaasas kale lagu qabo oo habdan ilmo haysanin aad u si dareemay dabcan gabadha marka wuxuu dhahay waxay dareemaysay eedna si kale anigu ruuxadeedu waa dareemay inay dareemayso wax kale waa waday dhaqtar iyo noo dhiibay uu dhahay in badan iyo wadamo badan ayaan dhaqaatiir u tagnay qarash fara badanna arintaas waan ku bixinay balse wax natiijo ah oo ka imaada lama helin ayuu dhahay markaan aad ugu rafaadnay dhaqaatiir fara badan iyo daawooyin fara badan iyo waxyaabo fara badan time nooga baxay qarash nooga baxay dadaal fara badan aan ku bixinay wax isbedelana aysan imaanin ayaan ma aragtay iska soo laabanay oo wadankeena meeshii aan joognay ayaan iska imaanay maalmaha kamid ayaan waxaan dhageystay nin tiktok ah hadana sheekh ah oo caalim ah oo sheegay qiso ka sheekeynaya dad anagoo kala ah ay ku dhacday oo markino intay haba dhali waayeen markii adkaarta badsadeen oo safarta ay badsaday ilaahay uu ku irsaaqay fungayo malaango markuu ilaahay ku arsaaqay markii adkaarta safarta ay badsadeen ayaan dhageystay uu dhahay dabadeed waa mid xaaskeyga waxaan faray inay istighfaarta badiso oo istighfaartina akhrino ayaan maaragtay ku heshiinay muddo ayaan istighfaartii akhrineynay iyaduna way akhrinayso dhahay sidaas siday u ahayd istighfaartan u akhrineynay gurigeena iskaga joognay meeshana iskaga deganayn habeenkeedu loogu iimaanay beenkan looga maqnaa ayaan habeenada kamid ah anoo jiifa iskaartiina muddo aan wadno ayaan ku riyoodo dhahay waxaan ku riyoodo yiri qof ii imaaday dhar cad wata ayaa ii imaado dhahay qofkii markuu ii yimid warqad saa u laalaaban 3 gees ah ayuu gacanta ii saaray uu dhahay warqadii markii gacanta uu saaray ayaan hurdadii ka soo kacay qofkiina yaani ma jooga dariyeed Soomahan bis riyadaas waan la yaabay yiri maskaxdeedii ku noqonaysay waan soo baxay waxaan soo aaday salaada subax soo dukaday masaajidka markaan salaada ka soo baxay waxaan soo maray gurigii gabadhii afraad xaaskayga ahayd gurigeeda ayaan soo maray dabcan meel kale habeenkaas jiifay بس هو حنو يماضو لجواديو فرحة كم وقت هذا مليكين سبحان الله جواديو آد وفرحسن أيانو يماضو لهاي فرحة كم وقت وتشجيع ده درين كذا الشعور تذا القياس كريم وعلى يابو لو حيوت أنت يفديسو
fadhigii fadhiisisay guriga gashay wixii imaatay iyadoo warqad yar oo laalaaban sida mise warqadda markay ii dhiibtay sidii warqadii xalay la ii dhiibay riyada aan ku arkay ay u laalaaban tahay waaya abuu dhahay warqadii aan fiirshow dhahay waxay igu tiri waa kaa qarinay maalmahan oo dhan waa xanuunsaday waan soo baaray uur ayaa leedahay ayaa la dhahay waana tana cadeyntii waan wuxuu yiri yacni kama nixin uu uurka oo farxad laakiin riyadii xalay warqadii la ii dhiigay tabti isla warqadii nafsu ayaa ay gabadha ii keentay sidii warqadii u laablaabneed warqad u laalaaban waa anoo fikiray markii aragto yiri waxaan ku fikiraa dhalka riyadii warqadii iyo warqadani waxaan way xanaaqdo wixii tiriyo yiri ma ku farxaysid uurkayga miya waa bii fikiraysaaba uurkii ma ku farxsanid ay tiriyo markaas ameerka ii soo noqdo dhahay oo fikirkan ka soo laabtay aan gabadhii wuxuu dajiyay aan irmaya waa ku faraxsana uurkaaga wallahi meeqa wadan iyo meeqa waqti iyo meeqa qarash aan ku bixinayn inaan helno uur aad u faraxsanahay maantana uur yeelatay laakiin waxaan ka fikirayay riyaxal aan arkay aan ku riyooday ayaan ka fikirayay warqadan ayaa aniga xal rigal iigu keenay adiguna saaka isla warqadii baad ii keentay marka taas ka fikirayay ma ahani uurkaaga waa ku faraxsanahay 100% ayaan ku faraxsanahay gabadhiisa ku dajiyo dhahay istighfaarti aan akhrinay aan laasimnay ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa kaasaan nagu irsaaqay gabadhii daanu awlaad waan haysto yiriyo saddexaas oo kala qaba laakiin gabadhan ayadoo dhan yar aan guursaday ilmana aan haysanin ayaan la walwalsan oo la murugeysna maantana alxamdulillah ilaahay ilmuusiyo intaas cunug ayaa u joogta alxamdulillah marka wuxuu leeyahay istighfaarta waa ajiib jidan waaye halaga faa'iideysto xilliga salaatu leylka xilliga dambe iyo xilliga saaf in lagu haayo qisadaas qisada kale ee aan ku wada waxay tahay gabar dhalinyaro ah ee guurka ka soo daahay guurka ayaaba ka soo daahay gabdhihii dhan waa la guursaday waa u maleynaa qisooyinkan kuwan wag in badan aan soo gudbiyay maalin dhaweed ayaan waxaan arkay shalay ma darad mii ahayd video soo dhigay videoga markaan soo dhigo cawadoo kale iyo waxa laga yaabaa chance hadaan hel inaan fiirsho commentiga qofba waxa ii soo qortay inuu gabar hayno wiilaha ma sheegi kari aga war maxay tahay dumarkan isku wada qisada ah qisadan oo kaliya maanta waxaan ka dhageystay 4 channel ayay tir ما شاء الله وأقصد والله هرتا وحواي ما شاء الله ومدنا وكلا جهد بدليهين أو الصومالي اللي قدك اللي بدلنا وليه هاي أنا قدرت كاس أجا كهذا وحملنا وخي توبيا وايه جالس برا جوج شري أيان أدو على شري دور قف أو أصحابته ما عرفت ضدك أنا وبس سنقانا كميد أها أو حاجة سوت شيدين أو أجا داسكو هذا شري ما شاء الله إن وأكتينه رينود استنوحي يقاني أف سومالي جودا وأف سومالي دنتي وقفكي بمركز أيك دحجر أم دحجوجين وسن آد ولا قبسن كرين أما وس آد فهم كرين لكن تتكسر إثيوبيا ما شاء الله يا أنا أف سومالي جينا وحيره كل بدلنا ذا لكن دي أف سومالي نولو حيه قفكي ما عنده كفهم يوايه حتى كهر نقصي صوم تاجرتي وأن وكل ترجمة جبر لو جبرود الصومالي لو جبرود الصومالي جبر رينود استنا جبر وقوي إنه كل ترجمة تكون وين عضي يعني في الصومالي جسوا دنتا إنك شكينا يا قصو جدو قصة مركا قصوين تاسو كلا حتى كهر وصومر نوبضان غير كان مرول بقعد هالشو أما عاد أركتو ضدك واللغة فائدية محاضرooyinka u jeedaan ee la qabanayo la dhageysanayo maanta iyadoo muxaadar lagu aqriyo birida muxaadar kala gasho isla nafsi shay wixii lagu sheegay mar walba lagu baraarujinaya ma ahane wax kala duwan ma jiraan marka laakiin qisadan iyo qisooyinku isku mid ma ahan laakiin waa isku egyihiin dabcan gabadhan waxay tiri gabadhaad qurux badan ahaa leema shaqansanayo leema soo doonanayo gabdhihii oo dhan waa la guursaday aroos waan tagi waayay meel waan aadi waayay bal family-geen ka baxsan waay anigoo waliba shaqeynaya oo kaaliska arag dadkii waxay leeyihiin asxaabtii gabadhan 30 sano hadda ku sii socotaa 30 sano maalinta u dhamaato qofta guursi doonta ayay tahay anoo maqlay dhahayaan tiri waxaan sameyn garan waay
waxaan sameeyo ayaan garan waayay bay tiri saan u fakarayay oo waxay tiri aan shaqadii xataa niyad u waayay oo dadkii waxay tiri noloshahoodii aan la noolaan waayay oo qolkaas aan ku xiranahay oo haddii gurigeena cid soo booqato qof soo booqato aan qolkayga isku xiro oo qof ii arkin ayaan waxay tiri subxaanallah waxaa jirtay bay tiri in ilaahay isku xiray inaan ilaahay isku xiray salaatuleelna dukada aan bilaabay balse intaanan bilaabin oo aan waxay tiri shoogsanaa ayaan gabar saaxiibaday maalin maalmaha ka mid inaan aado ay igu soo dhacday gabadhaasna waxaan ka rabay inaan la tashto oo iraahdo war arrinkan iyo waxaan aan ku jiro sidan xal ugu helaa inaan dhaha iyaan rabay bay tiri saaxiibtay markaan rab inaan u tago waan wacay waxay igu tiri masaajid hebel oo maanta muxaadara ka jirta ayaan joogaa alleelay kabahan gashto bartiiban ugu tagay tiri mise muxaadaradii baa la bilaabay markaan tago wax yar kadib sheekhu wuxuu ka hadlayaa aniga xaaladeyda sida aan ahay iyo dad badan oo xaaladaas ku jireen oo saliga nabiga suuratul baqara istighfaarta laasimay ilaahayna faraj u furay waxaa moodaa inuu aniga og yahay laakiin daani ima yaqaan imana ogee dad badan oo asaga og yahay jiro dad badan oo ogeyna intaba iyo qisooyin fara badan oo arkay maahano qisadiyan waxay tiri muxaadaradan soo dhameystay tiri aad baan u yaabay bay tiri intaan dhageysanayay runtii muxaadaradii qalbigaygu farxad badan ka soo bixisay layr badan u ifayay waxaan dareemayay dhiirigelin fara badan waxaan ka fikiray waxa aan sameyn doono guriga markaan tagay ka fikirayay waa soo laabtay muxaadarad bana ka soo laabtay guriga ayaan tagay qolkaygaan tagay waa fadhiistay waa fikiray markaas sidii hore maahi niyad jabkii qamigii iyo wixii haystay ima hayaan laakiin waxaan qaban lahaa ayaan ka fikirayaa go'aan baan hoos ka xariiqo waxaan gaaray qolkaan ku jiraa soo maahan 9-ka waa inaan ilaahay kaliya la sheekaystaa waa inaan salaatuleelka dukadaa waa inaan astaghfaarta akhristaa waa in aan bilaabo suuratul baqara ayarko aan dharkayga waxay tiri maaragtay soo weysaystay saliga dhigtay dhar nadiif oo caraf badan gashtay suuratul baqara ayaan bilaabay inaan istighfaarta ayaan bilaabay isla habeenkiina waxaan bilaabay salaatul leyl ku dhawaad 30 sano wixii iga dhimanaa allo aad bay u yaraayeen bil qura markaan waday adkaartii suuratul baqara saligii salaatul leyl markaan dukanayay ayaa waxaa yimid nin 3 calaamadood leh gabadha mar 3 calaamad iyadu lahayd marka hore 3 calaamadood waxay ahayd gabadha aan la guursanin oo la soo doonanin gabar wax baratay ahayd 1 gabar shaqeysata ay ahayd 2 haddana waxay ahayd gabar qurux badan 3daas ba way lahayd haddana wax soo doontay iyo wax soo raadsay ma baysan jirin bil markaan waday suuratul baqara akhrinteedii iyo salaatul leylkii iyo istighfaarto waxa u yimid nin 3 calaamad leh ninkan waa nin muxtaram ah oo la yaqaano number 1 oo qiimihiisa iyo wanaagiisa iyo sharafta iyo masabka lagu leeyahay la yaqaano number 2 waa nin wax yaqaana oo nin wax bartay oo kaaliska araga ah maad iyo diiniba ka dhisan number 3 waa nin baash haysta naaga qabin kaaliska araga subxaanallah gabadhi waa la soo doontay waa la guursaday dadkii afkay gacanta is saareen waxay isku saareen ma taqaanaa sabab gabadhan see ku heshay ninkaana nin la helamaba ahee see ku heshay sidee ku heshay la garan waay ilaahay baa u soo diray bil qura ayaan waday tiri inaan dukado salaatul leyl suuratul baqara akhriyo istighfaarta akhristo ayaan bil qura waday ilaahayna wuxuu ii keenay axlaa sawj maalaha kaal iska arag ayuu ii keenan ah ma sha Allah marka de maxaa sugaysaa haddii guurkaa soo daahay haddii adoo qurux badan oo nacnac u eg cid ku soo fiirisa ala adahay haddii lagu leeyahay gabadhan waa duqowday waa ognoo Soomaaliyaan ahna 20 sano maanta dhaafto waxaa lagu leeyahay gabadhan maxaa ka qaldan maxaa loo guursanaynin ayaa lagu leeyahay ya akhriso suuratul baqara oo laasimo oo salaatul leylka Allahna waafajiyo duko
oo xilli walba astaghfirullah wa atuubu ilayhi astaghfirullah alcadiim wa atuubu ilayhi astaghfirullah alcadiim wa atuubu ku celi istighfaarta badi irid walba oo ka xir way furmaysaa humuum walba oo ka haystana way tagaysaa wax walba oo guurka hor taagnaa oo caqabad kugu ahaana way dhamaanayeen oo ma sii joogayaan haddii xaasi jiray iyo haddii il jirtay intaba way tagayaan runta markaa idin sheego qasam aan kaga sheekeynayay tarhad inaan jecel gabar daaciyad oo diinta faafin jirtay oo gurigeeda sixir loo galshay hal waxaan qisadaas ka iloo waxay ahayd waxa u joogeen gabdho guur ka soo daahay guriga u joogeen markii sixir guriga laga soo baxshay maamadii soo noqotay ninkii oday guriga maanta markii hor dhibka sheekada inta bilaabay yani guriga ka tagay waa soo noqday waxaan in sixirkiina ciidan guriga sixir loo galshay ayaa la ogaaday gabdhihiina waa la soo doontay waa la guursaday haddii aadan la socon qisada oo soo daawanin macnaha gabar daaciyadaha jirtay oo quraanka diinta faafisa quraanka dadka barta family-na ahaayeen oo hooyo iyo aabbo iyo ilmo ay haysteen oo gabdho soo waaweynaadeen la guursano xilligii guurkaba sii koraya ayaa joogay oo macnaha gabdho la guursan kari mar hore ah oo la guursanaynin maanta odag wuxuu ku yiri naaya aniga waxaan ay qabanaysa ma doonayo waa gabadhii diinta faafinaysa maamadii way la yaabtay way ama kaagtay way ku buuqo ku qol wuxuu jooji shaqada albaabka ma bixi kartid ayuu dhahay guriga iska joogtay maadaama qof diinta qaniya ninkeeda guriga bixi karto oo dhahay guriga iska joogtay odagii gurigii uu ka tago buuq iyo balbalan balcidna uu ka tagay ayadina way yaabto iyadoo yaaban ayay imtixaanada guriga ciideed iska aaday gabdhihii iyo ilmihii waxay isdhaheen gurigiini family quruxda badna wax saan u galay balaayo kulli aadna ogeyni bal quraanka akhriya suuratul baqara in akhriyaan ilaa simeen ay bilaabeen markay maalmo wadeen gurigiisa waxa ka yeeray qarax ayaa ka yeeray qaraxii markii la raadshay oo odagii la wacay aab guriga waxa ka dhacay balkaalay guriga markii la raadshay waxa la ogaaday qolka martida ay fadhiga martida in qarax ka dhacay taa baalka maaragtay mutaleelka inuu qarax ka dhacay roog hoostiisa tayliski inuu qarxay oo gudaha god ku jira la arkay roog hoostiisa go sariir iyo baad duuban iyo wax ku jira aan la aqoon mar la galshay cid gelida aan la aqoonin hadda uu qarxay tayliska la maqlaayay markii la ogaad sixir ay noqoto ciidan loo galshay gabdhaha xataa guurka waa laga xiro oo gabdhaha xataa waa la soo doontay waa la guursaday marka soo tabaqra meel lagu akhrinayo iyo meel lagu laasimayo shar iyo sheedaan iyo sixir iyo balaam imaan kartee haddii guurkaas soo daahay iyo hadaa xanuunsan tahay iyo haddii dhibka lagu hay intaba isku day inaad akhrido dad ilaahay isu fududeeyaa jiro ma sha Allah 4 daqiiqo ku akhrin kara hadana dhib haysto waafajinta ilaahay baa iska leh dadan aqoonina maanta 5 aayad kaliya ka akhristaa jiro oo inay bartaan raba dad isbuuc ku dhameey karo oo bil akhrinaya jiro qofba say ugu culus tahay ma sha Allah marka ilaahay hana waafajiyo ilaahayna ma aragtay hanaga dhigo ku ka faa'iideysta soo dhawaada laashadka intiga waa xaqiina fikrada qurux badan waa xaqiina kor u qaada fiidiyoyaasha daawada si qurux badan comment fiican oo qofna ka soo baxsha asxaabta kalena oo rabtana oo ogeyn u sii gudbiya say uga faa'iideystaan oo ay ma aragtay caqabadaho haysta ay uga baxaan dikrigan iyo quraankan iyo nimcadana u jeedaan ka xaasidina u gudbiya qisooyinka haysana dikriga faa'iideena biidna laakiin nala soo wadaag insha Allah hadii aad qisa hayso lambarkay comment ku jira waa qoran kartaa WhatsApp-ka salaamu calaykum faadumiya soo dhaha markaan ku iraadana qisadaada noo soo daa si looga faa'iideysto ajir aad uga hesho maxaa yeelay qof kasta waxa la yiri walaalkiis waxa uu ka roon yahay ha uga faa'iideeyo hana liswaansho oo xumaanta hal iska reebo wanaagana hal isku dhiirigeliyo soo dhawaada marka subaxnimo wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh